bilowga hore ee filimkeena waxaana la baraa lamaane lagu kala magacaabo Andy iyo Kay iyo gabadhooda yar taasoo lagu magacaabo Rosie kuna nool adduun burburay kaasoo ay suumbiyadu ka taliyaan qofkii ay qaniinaana waxay ku qaadanaysaa inuu suumbiyo isku bedelo muddo 48 saac oo keliya sheekada xiisaha badanna waxa ay tahay qoyskan inay ku dhex nool yihiin guri ku dhex yaala webiga kaasoo ka samaysan doon maalin maalmaha ka mid ah Andy ayaa wuxuu arkaa carruur ku dheelaysa webiga dhinaciisa kale markuu u gacna hadiyana odagii carruurta ayaa biskoolad oo la soo baxay taasoo sababaysa Andy inuu iska xaroodo odaygina uu safarkiisa iska sii wato caadi ahaan qoyskan waxay ku nool yihiin cunto yar oo sahay ah oo u taalo iyo wixii ay ka helaan webiga mana awoodaan inay banaanka aadaan oo ay cunto soo qaataan maadaama cabsi aad u daran ay jirto maalin maalmaha ka mid ah Kay ayaa waxay odaga u sheegtaa inay sahayda sii dhamaanayso sidoo kalena ay ku khasbayeen inay cunto soo raadsadaan Kayna waxay soo jeedinaysaa inay safraan oo ay raadsadaan meel cunto fiican iyo ammaan leh balse arrinkaasi waa uu kasoo horjeesaa Andy isagoon u sheegaya khatartu inay aad u badan tahay Andy wuxuu ogaadaa doon cidla ah oo taalo webiga dhinaciisa kale wuxuuna ku fikiraa doonta sidii uu aaday in laga yaabo uu cunto ka dhex helo Andy dhinacii doonta ayuu soo aadaa markuu soo galno wuxuu ka baaraa inuu cunto ka helo wuxuu ka helaa xoogaa cunto ah iyo dhalo khamri ah isagana wuxuu maqlaa codad la yaab leh oo ka yeeraya dhinaca dambe ee doonta isana khatarta uma bareerayo wuxuuna go'aansanaa inuu meesha iskaga soo tago markuu cuntada Kay u keeno iyada waxay walaac ka muujisaa caafimaadkiisa balse isaga wuxuu u xaqiijiyaa inuu mid qabo oo aanan waxba soo gaarin intii waqtiga hurdada lagu jiro Kay waxay go'aansataa inay iyada doonta aado iyadoona aaminsaneyd sahay intaan ka badan inay kasoo heli karto Kayna waxay u soo baxdaa dhinaca doonta iyadoona aanan ka fikirin khatarta halkaasi ooga imaan karta waxay soo gashaa doonta waxa ay raadisaa cunto balse waxay maqshaa codad la yaab ugu dambeynna waxaa soo weerara suumbi waa uuna qaniinaa dhinaca kale Andy hurdada ka kaca wuxuu dareemaa xaaskiisa inay maqan tahay hoogaa kadibna wuxuu arkaa dhiig dhulka ku halaysa markuu soo raacana xaaskiisa oo maqsho ku jirta oo la qaniino ayuu arkaa waxay fiiriyaan saacad sheegaysa xilliga qofka uu suumbiga isku bedelayo taasoo uu Andy kasoo helo doonta iyadana 48 saacadood ayay haystay dood dheer kadib lamaanuhu waxay go'aansadaan inay sii socdaan oo ay raadsadaan meel ay caafimaad ka helaan waxaana markan u bilaabanayo safar dheer dhinaca kale waxaana la baraa gabar yar taasoo lagu magacaabo Thumi waxayna ka dhalatay dadka loo yaqaano Aboriginal ama dadka sida asalka u degnaa qaaradda Australia waana sokeyaasha dalkaasi gabadha yar waxay ku mashquulsantaa sawir gacmeedyo ay ka sameynaysa xaaladda ay haatan dunidu ku jirto intaas kadib waxay soo qaataa bakeelo dhintay iyadoo ku tuuraysa god hoogaa kadib waxay maqshaa cod aad u weyn kaasoo dhagaa xanuujiya dhinaca kale waxaan aragnaa Andy iyo Kay kuwaasoo haatan heleen gaariga ayna si diriq ah uga badbaadeen suumbi halkaasi joogay siday u soo socdeen xoogaa kadib Andy ayaa gaariga istaajinaya wuxuuna bilaabaa inuu fiiriyo maabka halka Kay ay bilaabaysa inay gabadha yar cafaayada ka bedesho balse si lama filaan ay dhiig afka uga keentaa taasina waxay muujinaysaa inay haatan u bilowdeen calaamadihii caabuqa saacado kooban kadibna ay isku bedeli doonto suumbi buuxa Andyna wuxuu bilaabayaa xaaskiisa inuu dejiyo dhinaca kale waxaan aragnaa gabadhii Thumi oo bilaabaysa inay quudiso noolo qarsoodiya oo god ku jiro ayadoona mas u tuurayso sidoo kale Kay nabarkeeda wuxuu bilaabaa inuu dheecaamo weli mid haruud ah ayadana Andy ay ku canaanataa inuusan u sheegin darnaanta caabuqa waxay muujisaa Kay cabsida iyo walaaca ay ka qabto inay isku bedesho suumbi sidoo kalena waxay muujinaysaa inay ka baqaydo inay caabuqa qaadsiido gabadheeda yar balse Andy wuxuu ku qancinayaa inay la joogto gabadheeda aysan dareemin cabsi aad u badan xoogaa kadib Andy waxaa ka hor imaanaya nin suumbi ah intii uu ninkaas ku mashquulsanaa gaarigoodii ayaa galaya shil aad u daran Andy waa uu miir daboolmaa xoogaa kadibna markuu soo kaco wuxuu arkaa xaaskiisa oo si dhammaystiran iskugu bedeshay suumbi balse nasiib daro xoogaa kadib waxaa soo kacaysa xaaskiisa waxayna bilaabaysaa inay weerar kusoo qaato difaac dheer kadib ugu dambeyn waa ay qaniinaysaa isagana wuxuu ku dadaalayaa inuu la baxsado Rosie waa ayna u suurtagelaysaa hadda Andy 48 saac kadib wuxuu isku bedeli doonaa suumbi isagana wuxuu diyaar u yahay intuusan suumbiga isku bedelin inuu gabadhiisa geeyo meel nabdoon taasoo ay nafteedu ku badbaadi karto wuxuuna haystaa keliya 48 saacadood si u badbaadiyo gabadhiisa Rosie waxay bilowdaa si aad inay u eyso maadaama hooyadeeda aysan la joogin Andyna wuxuu bilaabayaa inuu dejiyo isagoona ku buufinaya catarkii ay lahayd Kay intii Andy uu ku guda jiray nasashadiisa wuxuu arkaa ninkii sababta u ahaa shilka kaasoo haatan isku bedelay si buuxda suumbi waxaana soo muuqata Thumi iyadoona isku dayaysa inay ka mashquuliso suumbi kaasoo aan ogaanayn inuu yahay aabaheeda Thumi waxay jeexdaa gacanteeda iyadoona suumbiga soo raacay dhiigeeda si ay dareenkiisa u soo jiidato ugana leexisay Andy iyo gabadhiisaba Andy waa uu soo baxaa ugu dambeynna waxa uu kusoo leexdaa iskuul wuxuuna la kulmaa Ada taasoo ah macalimad howlgalab ah waxayna ka caawisaa nadiifinta dhaawiciisa waxayna u sheegtaa in dadka inta badan ka badbaaday dhaawacaasi ay yihiin dadka sokeyaasha ah waxayna Andy u soo bandhigtaa inuu caaw halkan iska sii seexdo Andy habeenkaas waxa uu la kulmaa calaamadihii ugu horreeyay ee caabuqa isagoona dhiig matagaya ka hor intii uusan miir beelin subaxii Ada waxay kula talisaa Andy inuu gabadhiisa geeyo dadka sokeyaasha goobaha ay ku sugan yihiin si ay halkaas uga hesho nolol nabdoon maadaama ay iyagu dilaan suumbiga inta badanna cudurka uusan kasoo agdhawaanin iyadoo uu waqti yar u helay Andy wuxuu bilaabaa raadinta meel uu ku badbaadiyo gabadhiisa intii lagu guda jiray safarka Andy wuxuu galaa meel burbursan si uu halkaasi
gabadhiisa biyo ooga siiyo. Markuu soo baxana wuxuu soo dhex maray zombies madaxooda dhulka ka taagan yahay. Mid ka mid ah ayaana soo kacay oo bilaabay inuu soo dabagalo. Andyna wuxuu arkaa gaari isagoon isku dayay inuu xado waxaa joojinaya nin lagu magacaabo Figna wuxuu Andy ka badbaadiyaa zombigii daba socday. Fig wuxuu ku xayiran yahay haan hoostiisa wuxuuna furayaasha gaariga siiyaa Andy isagoona u sheegaya inuu ka wareejiyo. Taas beddelkeedna isagana uu caawin doono. Andy waa uu ogolaadaa wuxuuna bilaabay inuu ka wareejiyo. Fig wuxuu Andy u soo kaxeeyaa hoygiisa kaasoo ah saldhiggaas oo hore uga shaqayn jiray. Halkaas wuxuu ku barayaa Lauren oo ugu sheegaya inay tahay xaaskiisa. Fig wuxuu ka codsaday Andy inuu Rose la joogo Lauren si ay u aadaan ugaarsi cunto iyo dilka zombies. Fig wuxuu aaminsan yahay in marka adduunka caadi uu ku soo noqdo dadku ay mar kale u oomanaan doonaan samaynta lacagaha. Sidaas darteed mar walba wuxuu dilaa zombieska isagoona ka qaadanaya hantidooda. Wuxuu sidoo kale dadka nool u adeegsadaa inuu ku soo dabo zombieska. Intii lagu jiray midaasi Andy wuxuu ogaadaa in gabadhi yareed ee lagu magacaabay Thumi uu afduub ka haysto Fig taasoona aad uga xanaajinaysa Andy maadaama ay noloshiisa badbaadisay inantaasi yar. Dhanka kale Lauren waxay si aad u daryeeshaa Rosie waxayna caloosheeda hoosteeda ku arkaysaa dheecaan haruuda iyadoona si aad u nadiifinayso. Fig iyo Andy markay ugaarsiga ka soo laabtaan Lauren waxay sheegtaa inay Rosie u nadiifisay. Andy markuu la joogo gabadhiisa wuxuu dareemaa gacantiisa oo gariiraysa taasoo ah calaamad muujinaysa inuu caabuq ku sii faafayo jirkiisa. Andy markan waqtigiisu waa uu sii yaraanayaa balse wuxuu ogyahay gabadhiisa inay ku jirto gacan ammaan ah. Wuxuu u soo baxaa meel cidlo ah si uu nafta isku dhaafiyo ka hor intii uusan isku bedelin zombie. Si kastaba ha ahaatee Lauren ayaa joojinaysa iyadoona u sheegaysa inaysan iyada ahayn xaaska Fig. Waxay u sharaxdaa Andy inuu Fig yahay dilaagii ka dambeeyay dilka ninkeeda iyo shaqaale kale oo badan. Inta sheekadaasi ay guda jireen waxaa soo muuqanaya Fig isagoona bilaabaya inuu bir madaxa ooga dhufto Andy. Markuu Andy soo miirsadana wuxuu kusoo toosaa isagoo ku jira shabaqii ay ku jirtay Thumi oo kale. Haatan labadooda waxay qorsheynayaan si ay halkan ooga baxsan lahaayeen. Waxay bilaabeen inay adeegsadaan hilib ceeriina iyagoo xarig ku xiraya kadibna zombies kusoo jiidanayo. Markay zombies ku xarigga jiidaana albaabka qafiska ayaa isfura taasoo u ogolaanaysa labadooda inay baxsadaan. Dib ayay u soo laabtaan waxayna Lauren ku qanciyaan inay la baxsato balse ayagoo sii baxsanaya Fig ayaa kasoo gaaray wuxuuna bilaabaa rasaas. Lauren waxay isku daydaa inay joojiso balse isaga waa uu toogtaa. Labadoodiina waxay bilaabaan inay meesha iskaga sii cararaan waxayna habeenkaas ku qaataan doox yar hoostiisa iyagoona bilaabaya si dhib leh inay iskaga furfuraan silsiladihii ku xirnaa. Andy waxaa kasoo muuqanaya calaamado badan kuwaasoo isbeddel ah wuxuuna bilaabaa inuu wejigiisa ku xoqo dhiig ku yaala derbiga. Subaxii Andy iyo Thumi waxay ku hadlaan arrinka Thumi aabaheeda iyadana waxay weydiinaysaa inuu aabaheeda soo caafimaadi doono isagana wuxuu u sheegaa qofkii mar cudurkaas uu ku dhaco inuusan badbaadi doonin iyadana si carle ay u cararaysaa balse waxay ka warheshaa inuu aabaheeda si buuxda u dhintay kadib markuu ku xayirmay geed. Andy wuxuu bilaabaa inuu dejiyo balse waa uu guul dareystaa waa uuna iskaga soo tegayaa xoogaa kadibna wuxuu ogaanayaa waqti uu haray inuu aad u yar yahay isagoo qoomeenaya oo caraysan ayaa wuxuu bilaabaya madaxiisa inuu ku aaso dhulka sida dadka kale ay sameeyaan ka hor inta aysan noqon zombie. Balse xoogaa kadib Thumi ayaa waxay maqashaa ooyinta Rose dhinaceeda ayayna soo aadaa. Andy wuxuu madaxa la soo baxaa kadib markuu ogaaday inay Thumi u imaatay si ay u caawiso. Muuqaalka xig waxaan aragnay labadooda oo xilligaas soo raacay dooni si ay u soo aadaan qoys uu hore u arkay Andy. Raadin dheer kadib ugu dambeyn waxaa u suurtagelaysay inay qoyskii arkaan balse aabihii qoyska ayaa wuxuu u sheegayaa inuu zombie qaniino xoogaa kadibna uu zombie isku bedeli doono. Ninku wuxuu la soo baxaa biskoolad ay ku jirto 6 xabadood isagoona labo ka mid a siinaya Andy wuxuuna u sheegayaa inuu labadaasi isticmaalo kadib markuu inta kale isaga ku dilo. Andy wuxuu isku dayayaa inuu odaga ku qanciyo inuusan wada dilin dhammaan qoyska balse odaga ayaa arrinkaasi diidaya. Andy oo cabsanaya xoogaa kadib wuxuu maqlayaa rasaasta dhacayso asagoo cabsi la gariiraya ayuuna meesha iskaga soo tagaa. Andy wuxuu qaataa qoriga wuxuuna isku dayaa inuu istoogto balse Thumi ayaa kasoo gaartay waxayna u sheegtaa inay diyaar u tahay inay geyso gurigeeda waxayna usoo jeedisaa Andy inuu u raaco islamarkaana Rosie oo halkaas ooga tago. Waa ay soo baxaan waxayna soo dhex marayaan tunnel uu maro tareen balse halkaas waxaa kasoo muuqanaya Fig. Thumi waxay bilowdaa inay Rosie qariso halka Andyna uu bilaabayo inuu Fig mashquuliyo. Ugu dambeyntii labadooda dagaal culus ayaa dhex maray. Andy wuxuu bilaabaa inuu xabad adeegsado balse waa uu la gafayaa. Figna wuxuu bilaabaya Thumi inuu biraha madaxa ugu garaaco wuxuuna qabsadaa Rose halka Andyna uu soo aadayo Thumi oo weli nafta ku jirtay balse Fig oo ka murugaysan dhimashadii Lauren ayaa wuxuu bilaabayaa inuu iska sii daayo Rosie. Ugu dambeynna Thumi oo socodka dhibaya iyo Andy ayaa soo wada baxay. Andy si tartiib ah ayuu zombie isku sii bedelaya waqtiga uu harna aad ayuu u kooban yahay. Andy Thumi wuxuu ka codsadaa inay u ballan qaado inay gabadhiisa daryeeli doonto iyadana ballantaas waa ay ka qaadaa. Andy wuxuu bilaabayaa inuu afkiisa ku daboolo qalab kaasoo ka difaacaya inuu wax qaniino maadaama Thumi iyo Rosie aysan socon karin dhabarkiisa ayuu kusoo qaadaa. Maadaama Andy uu xoogaa zombie isku bedelina wuxuu bilaabayaa inuu ul hilib kusoo xiro taasoona ka caawinayso inuu socdo isagoo zombie ah si uu hilibkaasi u gaaro. Ugu dambeyn wuxuu soo gaarayaa dhulkii sukayaasha markii mid
kamid ah dagaalyahanada uu isku dayo inuu soo afjaro nolosha Indy waxaa ka qabanaysa Sumi iyadoona bilaabaysa inay catarkii Kate ku buufiso si uu u dareemo Rosie inay markani ammaan tahay. ugu dambeynna Sumi waxay ogolaataa in loo raaxeeyo Indy, sidoo kalena Rosie waxaa soo dhaweynaysa hooyada Sumi. dhamaadka filimkani Indy waa loo raaxeeyay, sidoo kalena Rosie waxa ay heshay qoys cusub. halkaas ayuuna filimku egyahay. Ilooyin inaad muuqaalka like saarto, channelkana subscribe dhahto. waxaad iga sugtaa muuqaalo kuwan ka xiiso badan, adigana ha iloowin inaad channelka meel fiican gaarsiido. wassalaamu calaykum.